dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka gobolada ayaa wali dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab. Hiiraan waa xuduudda dagaalka dalka ka socda, halkaas oo tusaale u noqon karta in Al-Shabaab laga adkaan karayo in kale. Reer Hiiraan waxay si aan gambasho ku jirin u sheegeen gaabiska ka muuqda deegaanada kale, waxay kaloo dalbadeen in gurmad dhowr wajiha la siiyo si ay Al-Shabaab uga adkaadaan. tan iyo markii uu kacdoonkani bilowday, waxyaabaha la isweydiiyey waxaa ka mid ah gurmadkii Soomaalidu caanka ku ahayd xilliyada adag. dib aan ugu laabanna mashruucii badbaado qaran, markaas oo ay ciidan dowladda ka tirsan iyo mucaaradkii dagaal kala hortageen muddo kororsigii Farmaajo. ciidankii diidanaa muddo kororsiga waxaa maalin walba loo geyn jiray xoolo nool, raashin iyo dhaqaale. qabiil iyo qof ayaa gurmadkaasi loo bixinayay, oo xitaa wuxuu gaaray inay qabiiladu ku tartamaan cidda gurmadka badan. maanta oo uu socdo dagaalkaas ka culus kana muhiimsan oo la doonayo in lagu soo afjaro gumaad socday dhowr iyo 10 sano, ma jiraan qabiilo iyo dad isu abaabulaya inay bixiyaan wax u dhigma ama ka badan gurmadkii badbaado qaran. marka la eego labada dagaal iyo sida uu gurmad la'aan u yahay midkan hadda socda, waxay ku sawiri kartaa sida aanay Soomaalida macno ugu samaynaynin waxyaabaha danta guud ama isbarbardhigga mudnaanta. sida iska cad, dhowr jeerna la sheegay dagaalkan socda oo ka xaqsan kii badbaado qaran wuxuu u baahan yahay gurmad shacab oo dal iyo dibad ah si loo muujiyo mudnaanta loona badbaadiyo dhiigga shacabka Soomaaliyeed, kaas oo ay dhowr iyo 10 sano si dulmi ah u daadinaysa Al-Shabaab. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa laga rabaa inay abuurto wacyigelin ballaaran oo keeni karta dad maalkooda hura iyo kuwa naftooda hura. sida uu madaxweyne Xasan Sheekh ergey gaar ugu sameeyay arrimaha abaarta, si la mid ah waxaa loo soo jeediyey inuu magacaabo ergey u soo qareema dagaalka looga soo horjeeda Al-Shabaab, kaasoo ah qof lagu tuhmayo sumcad iyo aaminaad ayna aqbali karaan shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka. dhinaca kale, dowladdu waxay wadaa kulamo joogto ah oo ay la qaadanayso shacabka gobolka Banaadir, gaar ahaan dhalinyarada, laakiin fariinta ay gudbinayso ma lahan meel loo raaco. dadka fariinta sidaahina ma haystaan aqbalaad shacab. fariinta mararka qaar waxaa ka muhiimsan fariinsidaha. maadaama dagaal lagu jiro oo uu kacdoon socdo, waxay ahayd in la arko dhalinyaro badan oo isku qoraysa ciidanka si ay dalka nabadiisa uga shaqeeyaan, iyo dad badan oo dhaqaalahooda u huraya in la guulaysto. gaabiska arrintan wuxuu noqon karaa mid guud iyo mid gaar u ah dowladda federaalka ah, taasoo gudbinaysa fariimo aan meel laga goosto lahayn, soona diraysa fariinsidayaal aan dadweynuhu jeclayn. nooca fariimaha iyo fariinsidayaashaba waa arrin u baahan ayaa la leeyahay inay dib u eegto filla Soomaaliya. shacabkuna waa inay damiirkooda la hadlaan oo ay aqbalaan in intaan ka badan aanay ku sii jiri karin gumaadka Al-Shabaab. maxay kula tahay adiga?